الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. nabad ilaaliyaal muslimiin ah oo ka hoosaqeeya howlgalka kumeel gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS ayaa shalay ku biiray muslimiinta kale ee caalamka si ay ugu dabaaldegaan maalinta Ciidul Adha. muslimiintana uu ka mid ahaa madaxa ADMIS Ambassador Maxamed Alamin Soof ayaa waxay isugu soo baxeen masjidka ADMIS ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ugu duceeyeen Soomaaliya in ay hesho nabad midnimo iyo sidoo kale dib u heshiisiin. waxay sidoo kale u duceeyeen muslimiinta dhibaataysan. maanta waxaan joognaa anagu xaggan aan ka soconnaa Afrikada ciidanka nabadda waxaan joognaa inaan Ilaahay uu nabad nala qabto Soomaaliya si nabad u noqoto oo dhulkooga nabadda ugu adkeystaan oo si yaro oo nolosho fiican ugu waaraan. إن شاء الله بإذن الله كريم ورجينا إنت كرنا أنو إنان قبلنا نجو واجبه. دعاء أو وركعي إمام كأدمس مسلمين كورنيل محمود حسن أي كل رضي أهمية مارينتن وحقونا كبورية مسلمين إن أي كدايدان دريق النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي لي قيمها نفريدا أدي عدة كالسونيدا إيمانك إيا نفهرني ماذا يوسيدو كلا دقسني ماذا. As a peacekeeper, I feel happy to celebrate this Eid al-Adha with my brother and sister of Somalia as we request God to give peace to this country, also to have freedom as we have our freedom in our country, Uganda. ciidul adha oo sidoo kale loo yaqaano ciida la bariga waxay sidoo kale ay sharfaysaa rabitaanka nabi Ibraahim in uu Allah bari u bixiyo wiilkiisa oo kaliya Ismaaciil iyo sidoo kale waxay calaamad u tahay dhamaadka xajka oo ah tiirka shanaad ee Islaamka. imaamku waxa uu xusay in cibaadada xajka ee hal mar la qabto ay keenayso midnimada iyo sidoo kale sinaanta muslimiinta caalamka. waxa uu ku booriyay dadka muslimiinta ah in ay la noolaadaan dadka kale iyada oo aan loo eegin isir iyo midab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay ADMIS oo na soo gaaray.